السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يالكل وعنا ونكسر ملوبات كسوقتين كناس ودواد برامج كحولك ورركا صوماليا وهبي والبكدا وطان شبكة ورركا ورقات طيب. داود يال برامج كحنا كسو قد بنا ورركي دعدوينكي وجود بيي دالك. انتي زوجين بدن داود يال برامج كعاوة وحين كسو قادة دونا ورركي وجود بيي وردي حلايك دعي مقالة مقدشو. يدا أو رئيس الوزراء الدولة فدرالك الصومالي أفر إلى 20 ساعة كدب ورركا مركي ودعي وسر رسمي وجهل وردا. sidee ayaa loo soo gabagabeeyay howlgalkii ugu dheeraa oo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay kaga adkaadeen kooxdii weerarka ka dambeysay maxay shabaab ka yiraahdeen weerarka qasaaraha intuu la eg yahay muuqaalo cusub oo laga helay halkii qaraxyada ama weerarada ay ka dhaceen ayaan daawadayaal barnaamijkeedii ku soo gudbi doonaa haddii ay bahay noo saamaxo waa habeenimo jimco ah ee kowda bisha 3 ee Maarso 2019 ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka xulka wararka Soomaaliya. وهاجاك داود يلا أنا كوب لابنا برنامج كعندما الدولة فدرالك الصومالية جارهان كوا جار كوتا وبرن جاشان أما ألف جروب لو يقانو أي سوق بجباية هولجل كي مدة درقاتي وضد مكة المكرمة هالكاس حلي كواحدة الشباب أي كجيستين والرئيس كل قرحية يمد كلاوتو صحاب dadka badan 25 ruux ayaa dhintay ku dhawaad afartan kalena dhaawacay soo gaaray sida wararkeena ugu dambeeyay aad ku daawateen haddaba sidee ayaa howlgalka loo soo gabagabeeyay inkastoo aan goor idin soo gudbin doono qaabka uu ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya uga hadlay weerarkan haddana waxaanu warbixin idiga soo gudbin doonaa qaabkii ay ciidamada dawladda ay ugu guuleysteen in ay soo gabagabeeyaan weerarka ciidamada ammaanka Soomaaliya ayaa ku dhawaad 18 saacadood ay ku qaadatay in ay soo afjiraan weerarkan oo rag ka tirsan kooxda shabaab ay ku qaadeen dhismayaal ku yaala wadada Maka al-Mukarrama oo isugu jira hoteelo goobo ganacsi iyo guri dad rayid deganayeen weerarkan oo ahaa kii ugu saacadaha dheeraa marka dib loo eego weeraradii tooska ah ee al-shabaab sanadihii u dambeeyay ka fulinayeen Muqdisho waxa uu sababay qasaaro fara badan oo dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale burbur lixaad leh ciidamada booliska dawladda Soomaaliya ayaa xalay ilaa maanta duhurkii howlgalka ka qayb qaadanayay iyagoo la dagaalamaya dablay hubeysan oo gudaha u gashay dhismaha Shideeye oo isugu jira goob ganacsi iyo sidoo kale mid deegaan dhismaha Shideeye ayaa ku dhow hotelka Maka al-Mukarrama al-shabaab waxay sheegeen in bartilmaameedka weerarku uu ahaa hotelka hase ahaatee raggii hubeysnaa ay qaldameen oo ay galeen dhismaha oo ahaa mid ciriiriya isla markaana aad u adag ayaa la sheegay in ay keentay in howlgal dheeraada loo baahdo lana soo afjari waayo isla markaana dableydii hubeysneed ay galeen meelo gabaad ah oo dhismaha kamid ah howlgalka ayaa maanta duhurkii waxaa ku soo biiray ciidamada sida gaarka u tababaran ee loo yaqaano gaashaan kuwaas oo markii ay gudaha u galeen dhismaha adeegsaday bambooyin iyo hub culus taas oo markaa xaaladda goobta ka dhigtay mid dagaal abaar afartii galabnimo oo howlgalku uu socda ayaa ciidamada gaashaan waxa ay miinooyin ku xireen dhismaha uu ku jiray mid kamid ah raggii hubeysnaa kaas oo rasaas ka soo ridiyay goob uu ku dhumaaleysanayay oo markaasi adkeyd in la galo intaas kadib ayaa ciidamadu waxa ay darbiga ku xireen miinooyin iyagoo qarxiyay waxaana sidaa ku burburay dhammaan dhismihii Shideeye oo dhulka lala simay inkastoo markii hore qayb ahaan uu qarxii dhacay burburiyay howlgallo lagu baadi goobayo meydad ku hoos jira dhismayaasha hoostiisa ayaa socday ilaa iyo galinkii dambe ee galabta waxaana la soo bixiyay meydad kamid ah dableydii dhismaha ka dagaalamaysay iyadoo laamaha ammaanka ee dawladda iyo sidoo kale wasaaradda warfaafintu ay sheegeen in howlgalka uu ahaa mid guul ku soo dhamaaday qaraxyadii xalay ka dhacay wadada Maka al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho waxa uu sababay burbur lixaad leh qasaaro dhimasho iyo dhaawac fara badan iyadoo la qiyaasayo in dhimashadu ay badan tahay oo ay ilaa 30 ay gaarayso halka dhaawacuna uu gaarayo ilaa 100 ruux oo la dhigay isbitaalada magaalada Muqdisho haddaba kooxdii weerarka ka dambeysay ee shabaab ayaa waxa ay sheegeen in qaar kamid ah dableydii fulisay weerarkii xalay ilaa maanta ka socday hotelka Maka al-Mukarrama hilaac UK iyo dhismooyinka ku yaala wadada Maka al-Mukarrama ay dib ugu laabteen iyagoo bad qaba ama aanan wax dhibaato loo geysan afayeenka howlgalada kooxda shabaabna la yiraahdo Cabdicasiis Abu Muscab waxa uu sheegay warbaahintooda in 4 dabley ah looga dilay weerarka balse qaar kale oo aan tiradoodu aysan sheegin ay dib ugu laabteen goobahoodii iyagoo caafimaad qaba howlgalkeena gaarka ahaa ee ka socday magaalada Muqdisho si guul ayuu ku soo dhamaaday ayaa laga soo xigtay afayeenkan oo la hadlayay raadiyaha kooxda shabaab
shabaab ayaa dacaayad ahaan u adeegsada warbaahintooda iyadoo aanay soo bandhigin cadeymo ku saabsan tirada dableyda weerarka qaaday, inta la dilay ama inta dib u soo laabatay. waa xagaag daawadayaal. haddaba wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk Soomaaliya ayaa galabta waxa uu la hadlay saxaafadda isagoo xog badan ka bixiyay qaabkii weerarka loo soo gabagabeeyay iyo sidii ay ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya ugu guuleysteen kooxdii weerarka qaaday. haddaba ra-iisul wasaaraha ama madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya ayay dad badan ka sugayeen in arrintan ay jawaab ka bixiyaan oo ay ka soo hadlaan, laakiin 24 saac kadib ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre ayaa ka soo muuqday TV-ga qaranka isagoo ka tacsiyeeyay dadkii ku geeriyooday weerarka. sidoo kale waxa uu ka hadlay ama uu xog badan ka bixiyay waxa dowladda federaalk ee Soomaaliya la gudboon kadib weerarkii kooxda shabaab ee qasaaraha badan geystay. aniga iyo wasiiradii la socday anagoo matalayna madaxweynaha iyo dowladda inteeda kale waxaan kormeer ku soo marnay isbitaaladii oo ku soo booqanay bukaamadii. waxaan kaloon tagnay goobtii uu ka dhacay qaraxa meeshana aan ku soo aragnay dad Soomaaliyeed. waxaan leeyahay inta ku dhimatay Allah u naxariisto, inta ku dhaawacantana Ilaahay caafimaad ha siiyo, shacabka Soomaaliyeedna kulligood dhibkaas gaaray Ilaahay ha u dhib yareeyo. ugu horeyntii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada Soomaaliyeed oo runtii muujiyay geesinimo weyn oo dhiirigelin ay ka muuqato, iyagoo qaatay waqtiga ugu mudnaa oo ay qaadan karaan si ay hawshaas u soo afjaraan. sababtoo ah dhagarqabayaashu waxay galeen guri ay lahaayeen shacab Soomaaliyeed, halkaasoo ay askarteen Ilaahay ha xafidee ay ilaa xalay ilaa galabta ka shaqeynayeen in dadkaasi soo badbaadiyaan. in ka badan 35 qofood ayay ciidamadeenu ka soo badbaadiyeen halkaas, iyagu naftooda hurayay. qof walbo Soomaaliyeed marka oo arka askari Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan xasuusiyo maalinta dhibku uu dhaco inay yihiin geesiyaasha noo soo gurmada. madaxdii askartaas wadatay iyo ciidankii meeshaas tagay anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca madaxweynaha waxaan uga mahad celinaynaa dadaalka ay u muujiyeen dalkooda iyo geesinimada dheeraadka ay muujiyeen. waxaa kaloo u mahad celinayaa dhakhaatiirtii iyo kalkaaliyaashii aan ku soo arkay isbitaaladii aan tagay, halkaasoo ay ka muuqatay in dadka Soomaaliyeed iyagu isu gurmadaan, isu naxariistaan. dadkii Soomaaliyeed aan soo arkay waxaa ka muuqatay in ay helayaan gargaarka ay u baahan yihiin. ciddii wax looga qaban waayay isbitaalada ay ku jirtana dowladda Soomaaliyeed ayaa waxay ku caawin doontaa haddii Ilaahay yiraahdo in la soo daaweeyo. waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u sheego dadkii soo duulay oo laga adkaaday waxay ku soo duuleen shacab, waxayna ugu soo duuleen inay dowladnimada ka hortagaan. wixii meeshaas ka dhaca waxay ahaayeen dagaal lala galay shacabka Soomaaliyeed. shacabka Soomaaliyeedna waxaa u furan hal dariiq oo kaliya, dariiqaasna waxa uu yahay in aan ka adkaano cadowgaas. waxaan idinkugu bishaareynaya sida dhaqaalihiina ay dib u habeen ugu socoto ayaa dhisidda ciidankiina waxa ugu socda dib u habeen. waxaa la tiriyay ciidanka, waxaa la register gareeyay kulligood, waxaa loo dhisayaa xerooyin, waa la qalabeynayaa, waxaa socota kordhinta ciidanka. macnaheedu waxay tahay marka ugu dambaysa kaliya shacabka Soomaaliyeed waxaa la rabaa inay ku niyad samaadaan inaan ka adkaano cadowgaas. waxaan nahaynaa dariiqi looga adkaan lahaa. gabar iyo wiil, dhalinyaro iyo waayeel, siyaasi iyo ganacsade, hooyooyin iyo aabbayaal, kulligeen waxaan kaliya nagu waajiba inaan intaan u midowno ka adkaano cadowgaas u soo guntaday inay dhalinyaradana laayaan. maanta waxaan haysanaa shacab Soomaaliyeed iyo ciidan labaduba diyaar u ah inay ka shaqeeyaan inaan dagaalkaas isaga ku guuleysano. ugu dambeyntii waxaan leeyahay dowladda Soomaaliyeed ma joojinayso dagaalka ay wado inay ka adkaato cadowgaas waqti walba ay qaadato. qorshaha dhow iyo kan fog oo wadnaba waxaan ka shaqeyn doonaa inaan soo afjarno haddii Ilaahay yiraahdo. inta ka horeysa qof walbo Soomaaliyeed waxaa muhiim ah inaad ogaato dhexdhexaad kama ahaan kartid dagaalka dowladda iyo shabaabka ay ku jiraan. dowladdaada garab istaag
guushu way soo dhowdahay. waa mahadsantihiin. maamul goboleedyada dalka ka jira oo Puntland, Jubbaland, Galmudug iyo Hirshabelle iyo sidoo kale Koonfur Galbeed ayaa si weyn waxay u cambaarayeen weeraradan ka dhacay magaalada Muqdisho. laakiin weeraradan waxay ku soo aadayaan xilli la filayay in amaanka caasimadda magaalada Muqdisho si weyn loo adkeeyo, ayadoo waliba gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Yariisow uu sheegay in dawladdu ay diyaarisay ciidamadii ugu badnaa oo loogu talagalay in amaanka magaalada Muqdisho ay markaasi la wareegaan. wala socotayo barnaamijkii qorshaha amniga caasimadda ayaan hirgelinay. waxaan tababar hadda 3,000 oo boliis ah oo maaragtay nadiif ah oo dhalinyaro ah ayaa tababar soo dhamaystay. magaaladii waxaan wadnaa barnaamijka darisaynta shacabkii iyo boliiska la isku xirayo. habeenadu arkaysa gudoomiyaasha degmooyinka iyo taliyaasha saldhigyada sida ugu wada shaqayn lahayn islamarkaana amniga u sugan lahayn. annaga waxaan aaminsanahay dowladdii iyo waxaan nahay maamulka gobolka iyo shacabka in shacabka ay kaalintoodana qaataan, amnigana uu runtii noqdo mid la isku halayn karo. marka talaabadeedana waa ay socotaa. u dambeeya BBC report gareysbarmo aha taas marka waxay kutusaysaa in amniga uu soo hagaagay. marka waxaad leedahay dilaliya kacday magaalada kama dhacan yadnalada marka annaga waxaan ku leenahay kooxo rabo argagixisaa shacabka inay maaragtay laayaan ama ay qarxiyaan. waa adagtahay si loo wada joojiyo, laakiin waxaan caddaynaynaa in amniga sidii hore dhaamo, qaraxyadii sidii hore dhaamaan. maantana aan rajaynayno in muxuu ahaa qof walba oo magaaladan yimaado habeenka ku socdana uu arki karo sidai amnigu tahay. madaxweynayaashii ugu dambeeyay ee Soomaaliya sida Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed ayaa ka mid ah shakhsiyaadka la yaqaano ee ka hadlay weerarkan isla mar ahaantaana cambaareeyay arrintan. waxa uu Xasan Sheekh Maxamuud iyo koox uu ku sheegay in ay ahaayeen kuwa loogu talagalay in ay taakulayaan dadkii ku xilobay weerarka uu shir jiraayad ku qabtay magaalada Muqdisho. bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah. maanta waxaan soo booqannay dhaawacii dhibaatadii xanuunka badneed ee xalay dhacday, saakayna socotay ilaa xaddi dadkii ku dhaawacmo Soomaaliyeed oo dhibaatadu ka gaartay. intii dhimatay allah u naxariistaan leenahay, jannadii firdowsana allah geeyo. inta dhaawacantay oo maanta isbitaalkan iyo isbitaallada kale oo magaalada ku yaallo dhan joogtana ilaahay ha u boogadhayo, ilaahay caafimaad degdega ha siiyo. haddee nimankan cadowga ah ee dalka cid ay dhaafayaan cid ay dhowrayaan aanay jirin. Soomaaliyana way ka dharagsan tahay, annaguna dhowr mar hore waa ka hadalnay, dib ugu noqon maayo. waa cadow jiritaanka dadkan la dirirsan. dadka maanta dhaawacooda isbitaallada yaallo ama kuwa dhintay ama kuwa muxuu waayeelka iyagoo garbaha laga haya ciidankeenna ay meesha ka soo saarayeen, runtii waa garan karnaa in oo wax ay dadkaasi in nolosha loo diidan yahay mooye wax kale oo ay dembi ay galabsadeen inaanay jirin. marka taas intaasaan ka leenahay nimankaas cadowga ah. mar kale intii dhimatay allah u naxariisto, in dhaawacana allah daaweeyo. waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo ciidamada geesiyiinta ah ee Soomaaliyeed ee amniga dalkani ummadan ku howlan oo qaarkood oo dhaawac yihiin oo maanta dhaawacooda halkan qaarkood aan ku aragnay, qaarkoodna isbitaallada kale dhaawacooda uu jiro. oo runtii yacni waxa ay samaynayaan yacni nafhuris aan caadi ahayn ay tahay. waxaan leenahay waa mahadsantihiin, ilaahay idinka abaal mariyo. waxa wax ugu fiican oo qof bini aadana iyo hadiyada ugu fiican oo qof bini aadan uu bixiyo waa naftiisa inuu bixiyo. naftooday bixeen wiilashaas duruufo adag weliba ayagoo ku sugan. waxaan leenahay muxuu ahaay allah idin barakeeyo, muxuu dadaalkiinana ilaahay hala jiro, kuwii cadowga ka guulaystana mar walba allah idinka dhigaan leenahay. intaa kadib shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay ha loo midoobo, ha loo soo wada jeesto. dagaalka nimanka nabadiidka cadowga ee ku faanayo annagaa dadkii laynay, annagaa dadkii dilnay, annagaa daarihii duminay, annagaa sumcadda Soomaaliya iyo magaca Soomaaliya ay leedahay hoos u dhignay, annagaa muxuu ahay dadkii muslimiinta ahay oo maxaan ku iraahdaa qaarkood waa huba intii dhimatay, qaarkood ayagoo weese qabo dhintay, cishii u diyaar garooba ama cishii soo dukay dhintay. yacni waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ay war fahma oo waxgarta oo dadkan ha loo midoobo. tani siyaasad ma aha, diin ma aha, cadow kaloo dibadeed ma aha. war waa dad isu soo bahaystay in ay jiritaankiina la dagaalamaan. وهاجاك داوديال intaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka xulka wararka Soomaaliya aynu kusoo koobnay wararkii ugu dambeeyay ee la xiriiray weerarkii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho iyo qaabkii ay dowladda federaalka Soomaaliya weerarka u soo gabagabeysay iyo hadalkii ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu ka yiri kadib 24 saac weerarkaasi.
intaas ayaan barnaamijka kusoo gabagabay doonaa aniga Cabdullaahi Axmed Nuur oo barnaamijka la socodsiinayay waxaan rajeynaynaa insha Allah in aan wararkeena dambe aan kusoo gudbino waxabaha arrimahan kusoo kordha inta ka horeysa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh